qisadani waxa ay ku dhacday hooyo wiilkeedu uu orosay orooska iyadoo faraxsan ayay timid balse aroosada meeshan taagan kuma qanacsan hooyada meesha ay taagan tahay ninkeeda ayay wixii ku tiri kadeji hooyadaada aan suura galnay wuxuu yiri qoftan hooyadeeda mana awoodo inaan meeshan ka dejiyo waxay tiri kadeji hadaad ka deji karin aniga ka dejinay u kaada ayuu yiri aniga ka dejinay oo la hadlayo wiilka asigoo qoshuucsan ayuu hooyadiisa soo fiiriyay wuxuu yiri hooyo meeshan ka deg oo iskaga deg hooyadii ayaa waxay tiri wiilkayga maanta waa arooskaaga waxaan jeclahay farxadaada iyo inaan garabkaaga istaago maxay ii dejinaysaa wiilkayga wiilka ayaa ku adkaystay hooyo ka deg meeshan aroosada aad bay ugu farxsan tahay hadalkaas hooyadii ayaa ku qanacday marka dambe hadalkii iska qaadatay iyadoo aad u murugaysan weliba ilmeynayso oo hooyo waxay jeceshahay ayay weysay awood kale ma laha aan ka ahayn inay ooso hooyadii balse waa beer wax dhalay wiilkeeda kama tagi karto gadaal ayay dib u fiirisay wiilkeedii wiilka ayaa wuxuu arkay hooyadii inay meesha wiil ay taagan tahay aysan tagin balse hooyadii socodkii ayay iska sii wadatay way iska tagtay arooska ayuu wuxuu fiiriyay aroosadii balse way faraxsan tahay murugo kuma hayso hooyadaas ilmeynayso arooskii ayaa meesha ka soo degay wuxuu yiri ciyaarta hala joojiyo ciyaarta iyo muusiga hala joojiyo dadkii way yaabeen wuxuu yiri hooyaday ayaa iibinaya aroosada way yaabtay ma jiro qof iga iibsanaya hooyadayda ayaa soo jeestay maxsan dadkii way yaabeen aroosada way yaabtay hooyaday ayaa rabaa inaan iibiyo ma jirto qof iga iibsanaysa hooyaday ayaa oosay oo ilmeysay waxayna soo xasuusatay markii uu yaraa waxay u qaban jirtay markay u qaweynayso heesii u qaadi jirtay weliba iyadoo aad ugu faraxsan kamana daali jirin inay ciyaarsiiso markay u qaweynayso way ku faraxsan tahay ma jirto cid ku qasbayso in ay dhasho waaye balse wiilkii ayaa wuxuu yidhi maada hadashaan qof iga iibsanaysa hooyadeeda ma jirto hooyadii ayaa aad u oosay oo ilmeysay waxay soo xasuusatay markuu u jiifo ayadoo shuman ma is seexan jirin hooyada waa mid naga fikirtaa haddii aan yarnahay iyo haddii aan weynaanaba intaba waa mid naga taxadirtaa wiilkii wax u jawaaba ayuu waayey dhinacyadu fiiriyay qof u jawaabto ayuu waayey wuxuu yidhi hooyo qof iibsan kartaa ma jirto qof iibsan karo hooyo ma jirto dhinaceeda ayuu u soo dhaqaaqay asagoo aad u murugaysan kadib jilba ayuu dhulka dhigtay lugaha ayuu ka shumiyey asagoo aad u oonaya oo ilmeynayo warashada way yaaban tahay waxa meesha ka dhacayo hooyo qof walba ma iibsan karo hooyo ma iibsan karo keliya waxaa iibsan karo ilma ay dhasho keliya waa shay qaali ah hooyo qof walbana ma helo waxa aan idhi ma jirtaa qof hooyadeeda iga iibsanayso waad iga aamusteen taas micnaheeda ma aha inaan aniga hooyadeyda iska iibinayo balse hooyo waxaa iibsan karo ilmaha ay dhashay kuwa baariga ah ma jiro wax aroosa oo halkan ka dhacayo qofkii hooyadeeda raaligelin waaye qanci waayana aniga beri ima raaligelinayo oo ima qancinayo qoftan waa hooyadeeda oo aan aad ku jeclahay oo ku jeclahay hooyo aad ayaan ku jeclahay hooyadeeda fadlan ka taxadar inaad qof aad jeceshahay waalidkiisa aan nacdo waalidkiisa waa waalidkaada oo kale fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan la wadaag asxaabtaada adigoo usii sheergareynaya haddii aad nagu cusub tahana ha hilmaamay inaad subscribe ma saartiin aad ayay u mahadsantiin